Inkastoo ay waxbarashada internetka ee adduunku ay maanta horumartay, waxaa jira waxbarasho online lagaga dhigto meelo fara badan, dugsiyo ilaa iyo heer jaamacadeed. Waa qodobo ku saabsan waxbarashada internetka oo qarniyadii u dambeeyay ama sanadadii u dambeeyay noqday mowjad aad u ballaaran oo looga faa'iideysan karo dhinaca internetka. Internetka ayaa ah meesha keliya ee maanta adduunku ku wada joogo ganacsiga, wax-isweydaarsiga, waxbarashada, iyo sidoo kale xirfadaha iibgeynta, suuq-geynta, iyo arrimo fara badan oo xayeysiinta alaabaha oo ka mid yihiin ayaa internetka lagu faafiyaa, iyo sidoo kale isticmaalka tooska ah ee khadka. Internetku waxa uu faa'iido u yeeshay waxyaabo fara badan, waana horumar baaxad weyn ku fadhiya oo adduunka ku soo kordhay, taas oo siyaabo kala duwan looga faa'iideysto. Dadyow ayaa ku nool dhaqaalaha internetka ka soo gala, isagoo dhaqaalana lagu bixiyo internetka. Mowjadahaas internetka wareejiya waxaa maamulo shabakado gaar ah. Waxaa sidoo kale looga faa'iideysan karaa qaabab kala duwan waxbarasho online ah, isagoo qofku ku baran karaa muddo kooban inuu wax ka barto internet. Waana muddadii coronavirus-ku jiray, halka adduunku u guuray oo ahayd in internetka laga shaqeeyo iyadoo qaabab kala duwan wax loo qabanayo, sida faafinta wararka, waxbarashada, iyo arrimo fara badan oo la xiriira wixii ku tiirsanaan karaya dhinaca internetka. Howlaha gaarka ah adduunka ayaa ku wada jooga internetka si toos ah, iyadoo uu adduunku noqday tuulo keliya, maxaa yeelay internetku waxa uu horseeday arrimo fara badan oo adduunka ka kala xidhnaa. Horumarkaas baaxadka leh waxaa ku tallaabsaday aadamaha, taas oo Ilaahay u fududeeyay, waana waxa maanta horumarka ugu baaxadda weyn ee adduunka ka jira uu yahay internetka, halkaas oo aan la heli lahayn waxbarasho sii socota haddii uusan jirin internetku markii uu dhacay caabuqa COVID-19. Haddaba maxay kula tahay waxbarashada internetka iyo sida looga faa'iideysan karo? Waxbarashada internetku waxay u kala baxdaa qaabab kala duwan, adigoo xulan kara waxaad baranaysid. Kuma koobnid oo kaliya inaad tahay qof da'yar yaana isdhihin weligaa. Waxbarashadu waxay ku eg tahay da'yarta ama xilligaas ay ku habboon tahay. 50 jir ayaa qalin jebin kara, waana sida dhacday meelal fara badan. Isku day inkastoo aad leeg tahay, haddii ay da'daadu u dhaxayso 40 ilaa 20, waad awoodaa inaad xaqiijiso guul waxbarasho oo aad u muhiim ah oo aad u baahan tahay. Kama maaran kartid waxbarasho la xiriirta xirfadda aad ku shaqaynaysid. Wax inta badan lagu dhaliilaa dadkeena Soomaalida in aynanu inta badan ahmiyadda siinin xirfadaha gaarka ah ee lagu shaqeeyo. Waxaan ognahay in wadamada horumaray ee barwaaqo sooranka ah inta badan dadka lagu shaqaaleysiiyo xirfadda oo kaliya aysan ahayn shahaado uu sito oo uu si toos ah ugu dalban karo shaqada, balse marka hore intuusan kumbanigu qaadan, qofka uu xulanaya u shaqaynaya uu ku xulan karo xirfadiisa gaarka ah ee uu ku shaqayn karo, taas oo adduunka oo dhan maanta laga dareemayo. Waxaan ognahay dalka Sacuudi Carabiya oo la keenay dhalinyar Turkiya si markaasi loo baro ama loo tijaabiyo xirfadooda dhinaca warbaahineed. Waxaa lagu tilmaamay in loo baahan yahay markaasi xirfadda ay garanayaan oo aan loo baahnayn shahaadada gaarka ah ee ay ka soo qaateen jaamacadihii ay wax ka soo barteen. Internetka waxaad ka baran kartaa xirfado gaar ah oo horumarin aad u baaxad ballaaran. Wax walba oo aad danaynaysid internetka ayay ku jiraan, adigoo si tartiib ah uga baari kara. Waxbarashada internetka ee ay muhiimka tahay in laga faa'iideysto. Inta badan Soomaalidu waxay waqtigeeda ku lumisaa sidaan wada ognahay dhinaca Facebooka, isku mashquulidda dadka gudaheeda, arrimaha qabaa'ilka, iyo waxyaabo kale oo ah hal bacaad lagu lisay. Waa guuldarro u soo hoyanaysa qof kasta oo ku tallaabsada arrimo qabiil aanooyin aan jirin, iyadoo adduunka uusan ka ahayn waxar. Dabcan waxaan ognahay in caalamka oo dhan uu horumar baaxad weyn gaarayo, hadday tahay dhinaca dalalka, shakhsiyaad gaar ah, iyo sidoo kale dadyow gaar ah. Horumarkaas uu aadamuhu gaarayana waa mid ama waa dad ku dhashay 9 Soomaalidu isku mashquulidda gaarka ah ay leedahay ma jirto waxay uga faa'iideysan karto. Inkastoo aan la dhihi karin Soomaalidu waa eber, oo ay tahay dad aad u bir ah, sidoo kalena manaxayaal ah lagu tilmaamo. Dabcan waa dad aad u ficil wanaagsan, haddii ay wax qabanayaanna degdeg wax ku qabta. Sidaas oo ay tahay mujtamaca Soomaaliyeed waa kuwo u baahan in ay iyagu ay horumariyaan waxbarashooyinkooda dhinaca internetka iyo sida wax looga faa'iideysto, si markaasi loo dareemo
dhinaca ganacsiyada internetka iyo sidoo kale waxbarashooyinka aadka u muhiimka ah sida scholarshipka ay bixiyaan wadamada horumaray ama barwaaqo sooranka ah. hadduunan internetku jirin ma kula tahay in waxbarashada internetka sida scholarshipka la heli lahaa? Su-aashu waa maya. haddaba mar hadday xaaladdu sidaas tahay, waxbarashada internetka intaad ka baratid ayaad ku shaqayn kartaa online adigoo gurigaaga jooga. horumarka intaas leeg ee uu aadamuhu maanta gaadhay waa mid aan shaki ku jirin. sidaas darteed waa laga maarmaan inaad dhinac uga faa'iidaysatid adigoo raacaya habab kala duwan, sida inaad qiyaasi kartid ama inaad nidaamin kartid qaabkaad wax u baranaysid xirfadaada jeceshahay ee gaar ahaaneed midda shaqaynaysa ee suuqa ku jirta ee xirfadahan. xirfaddu waa shay lagama maarmaan oo ay tahay cid walba oo shaqaynaysa inay barato, isla marhaantaana shaqadu kama maarato xirfadda. haddii uu yahay qofku qof bilaa xirfada, ma qaban karo waxa loo igmaday ee looga baahan yahay. waxaa caalamka oo dhan ka jira shaqooyinka laga shaqeeyo iyo wax walba oo la qabanayo in xirfad iyo aqoon loo yeesho. taasna waa midda looga baahan yahay mujtamaceena Soomaaliyeed inaan la nimaadno howlkarnimo dhinaca aqoonta ah oo sidoo kale firfircoon, taas oo xirfadaasi horseedi doonto horumar baaxad leh oo lagaga gudbi karo marxaladaha qallafsan ee dadka haysta Soomaaliyeed. orahaha cajiibka ah ee ay ka tageen milyaneerada caalamku waxay ahayd: ha isdhiibin, hana caban abidka, adigoo horumarinaya nafsadaada yourself. sidaas awgeed waa lagama maarmaan inaadan marnaba caban oodan ka caban daruufaha, sidoo kale inaad u babac dhigtid noloshan markaasi hagardaamada iyo daalka badan. haddaan usoo laabanno internetka, waa meesha keliya ee adduunku maanta wada joogo. sidaas darteed waxaa halkaas yaalla waa wax aad u faa'iido badan. khadkaad mar walba isticmaalaysid waxaan ku bixinaa dhaqaale. dhaqaalahaasna waxa uu si toosa ugu xaroodaa hay-ado iyo sidoo kale shabakadaha maamulo internetka, kuwaas oo qaabab kala duwan u kala qaybsada dhaqaalaha ay dadku ku bixiyaan, iyadoo aan ahayn si toos ah balse ay tahay qaab digital ah oo looga baxayo ama loogala baxayo dhaqaalaha aad isku isticmaalaysid internetka. waana suuqyo nidaamsan. internetku waa goob aad ku iibgeyn kartid suuqa aad leedahay ama ganacsigaaga, kaalkaas oo ay kaala soo xidhiidhi karaan macaamiisha isla magaaladaas ku nool. haddii aad dalkao dhan aad ku kala leedahay xarumana, waa fursado aad u muhiim ah oo ay dadku kugula shaqayn karaan ama ay kagala soo xiriiri karaan internetku. horumarkaas baaxadka weyn ee internetku sababay waa in si toos ah looga faa'iidaysto qaababka uu muhiimka u yahay, iyadoo loo marayo qofkuna uu kusoo bandhigi karo xirfadiisa gaar ahaaneed ee loo baahan yahay inuu bulshada la wadaago, iyadoo internetka laga sameeyo dhaqaalo aad u faa'iido badan, kaas oo dhinacyo kala taabanaya. sida tusaale ahaan inaad arday tahay markaasna aad doonaysid inuu macallin kuu dhigo waxbarasho gaar ah, sida tusaale ahaan aad rabtid inaad wax khaasa ku takhasustid adigoo ardaya. taas waxay u baahan tahay inaad macallin toos ah la xiriirtid, halkaas oo macallinkaasna uu ka heli doono gunno yar oo ku filan isagoo internetka kaa baraya wixii aad doonaysay. haddaba horumarkaas baaxadka weyn ee lagu tallaabsaday, maadaama aad mar walba aad isticmaalaysid khadadka adigoo shaqo gacanta ku haya, waad nidaamin kartaa qaabkaad wax baran kartid. waana wax mar walba aan isku baraarujinayno. muhiimadda koowaad waxaan siinaynaa xirfadda gaarka ah. tusaale ahaan haddaan soo qaadano Canada oo ah dalalka reer galbeedka, waxay qaateen ilaa iyo 90,000 oo qof, taas oo looga gol lahaa in lagu shaqaalaysiiyo waddanka Canada gudaheeda. haddaba waxaa muhiimadda la saaray shaqaalaha xirfadlayaasha ah bes, wax kale oo meesha yaalay ma jirto. waa in aad xirfad leedahay, xirfadaasna ay tahay mid shaqaynaysa oo loo baahan yahay. haddaba iyadoo sidaa ay tahay, haddii aad isku dayaysid inaad noqotid qof shaqayn kara, ma leedahay xirfad. sababtu waa in loo baahan yahay xirfadle. haddaba haddii aadan wax xirfada lahayn, ha isku daalin inaad raadisid shaqo. taasi waa qodobka keliya isdhihi karno, maxaa yeelay muhiimaddu waa xirfad, waana wax aan mar walba ku celcelinayno. waana aalad fudud internetka oo aad maanta ka baran kartid, sida tusaale ahaan waxyaabaha digitalka, ganacsiga iyo sidoo kale muuqaal samaynta. qaabab kala duwan ayaad u baran kartaa internetka aad isticmaalaysid ee markaasi aad dhaqaalaha ku bixisid, adigoo ku takhasusi karaa muddo yar oo kooban shay aad ugu muhiim ah oo aad beriba ku shaqo tegi kartid. haddaba muhiimadda saar haatan oo bilow waxaad doonaysid inaad baratid. haddii aad doonaysid inaad baratid waxyaabo gaar ah
oo aad ku takhasustid maanta waa fursad bannaan. Internetku waxaan qabnaa in internetku yahay meel uu adduunku ku wada joogo ay wax walba yaalaan. Ha laga faa'iidaysto. Waalidiinteen ama waalidiintood waxay u safri jireen meelo fogfog si ay waxbarasho u soo helaan, laakiin maanta arrinku saas waa uu ka duwan yahay. Haddaba iyadoo saa ay tahay, dadka hore waxay xafidi jireen boqolaal shay, iyadoo kutubta qur-aanka kariimka loo doonan jiray meelo aad u fogfog iyo waxbarashada kale ee aasaasiga ama tan maadiga. Sidaa awgeed ma xafidi kartid haatan adigu taleefanka gacantaada lambarka ku jira, balse waa hubaala inaadan xafid aadan saasa lahayn, iyadoo la ogyahay in maskaxda bini'aadanku ay qaadi karto 25 milyan oo buug sida ku xusan qur-aankeena kariimka. Haddaba ka faa'iidee maskaxdaada oo ka shaqaysii kana furo silsiladda. Waxaan isku baraarujinaynaa, waxaan haysanaa fursado ballaaran ee ha laga faa'iidaysto waxbarasho toos ah ama xirfad ah oo internetka ah. Fadlan muuqaalka like saar, subscribe iyo share oo la wadaag asxaabta kale. Intaas ay qodobkani ku egyahay. Waxaan noo ballanaa qeybaha kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.